السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عن دل هانتين بداوة ديال ميل كستو جوجتان كنا سو دوادا وركي رويال oo ay kaga soo tabiyay stuudiyihiisa magaalada London. hal qof ayaa ku geeriyooday tiro kaleetana waa ay ku dhaawacmeen gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa oo saakay lagu qaraxiyay isgooska Sanaa ee magaalada Muqdisho. qaraxa kadib waxa halkaasi soo gaaray gawaarida dabdamiska iyo waliba maamulka degmadaasi iyo ciidamo ka socda dawladda federaalka. warbixin arinkaasi ku saabsan Foos Cabdullaahi ayaa Muqdisho ka soo dirtay. qaraxan oo saaki subaxnimadii ka dhacay isgooska Sanaa ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in uu ahaa gaari nooca raaxada oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay. goobta qaraxa ka dhacay isgooska Sanaa oo ay mid ay aad u isticmaalaan gawaarida ka galgoosha degmooyinka gobolka Banaadir, iyadoona halkaasi ay soo gaareen gawaarida dabdamiska. waxaa halkaasi sidoo kale ku geeriyooday mid ka mid ah dadkii saarnaa gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen. waxaa goobta soo gaaray ciidamada booliska ee dawladda Soomaaliya iyo labada gudoomiye oo ka kala socday degmada Yaaqshiid iyo degmada Kaaraan. ugu horeeyna waxaa goobta qaraxa ka dhacay warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Muxudiin Xasan Jurus ayaa sheegay gaariga qarxay in laga leeyahay wasaaradda guud ee guryeenta ee dawladda Soomaaliya ayna baari doonaan dadkii falkaasi ka dambeeyay. halkan oo arkaysiin dhabarkeena baad aragtaan baa soo ayo gaari Corolla markeda oo ay gumanayo oo lagu soo xoray oo la soo saaray waxyaabaha qarxa. marka taasna waa leenahay haddii ay kuleeyeen mid qof bilaadi oo ninana waa ku meesha intaas halkan ku kulanay saaro kan taaqnay oo baan loo sheegay ma jiraan anaguna waa meel dhaasho labay degmo dhaasho Yaaqshiid iyo Kaaraan bartamaheed waayo wadada waayo halkaas ayaan rabaa inaan intaas inaan sheego. gaariga waa gaari shaqeeya oo sida noo sheegay ilaahay wasaaradda hawlaha guud ilaahay shaqaaleeda ay saraa'iiliin laakiin waxa qarxay in uu soo xoray ayaan la tahay laakiin kulli wala soo la baari doona meesha la dhigay iyo meesha lagu soo xoray garash gaari lagu xoray jiray taas kulli wala dib la soo jeedo. kasarka dhashay waxaan hadda ognahay waxaan hadda ka dhacay meesha inaan ku gurtay nin Soomaali ay gurtay wallahi marna inaan hor dhacno waxa ay laakiin nin ayaa ku gurtay meesha. waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Kaaraan ayaa warbaahinta u sharaxay qaabka uu u dhaceen qaraxa. saxaafadda sida gudoomiyaha sheegay waa wax weyn ma jiraan, wax walibana waqtiga ay dhaceen baaritaan ayaa ka dambeeya. marka waxaynu leenahay ka hor dhici ma doono, mana ka hor dhici karno nin baa ku dhex jira sida gudoomiyaha sheegay aragtaan adinkuna. marka waxaan leenahay ma dib ka yimid ayaa soo sheegi doona. waxaanu leenahay marka ay sax ahayd haddii kala ahayd oo baaritaan ma jira marka ma doonayno inaan ka hor dhacno. waxaan leenahay marka haddii la soo saarayna wixii arribilka ka dhici jiray tahay haddii ay tahay dad shaqaale dawladeed ama shaqaale iska socda ama shacab iska socdayna ee wax loo dhaxgeliyaan waa dhagartii awal ka jiri jirtay magaalada. marka si walba ay tahay waxaan sameynaynaa baaritaan dheer oo ku aadan hadba sidii waxaan ugu dhaceen. waana mahadsantihiin. Foos Cabdullaahi, Royal TV, Muqdisho.